bishii Disembar ee sanadkii 2016 oo laga joogo muddo 9 sanadooda ayay ku beegneed markii loo magacaabay maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa. muddadaasi hawsha ugu weyn ee laga sugayay waxay ahayd inuu Hargeysa waraabiyo, balse dariiqo kale ayuu qaaday. mashaariicdii ugu badnaa ee biyaha Hargeysa lagu maalgelinayay ayuu helay, haddana biyo lama hayo. lacag ka badan 70 milyan oo dollar ayaa faramaran iyo biyo la'aan laga jooga, balse maareeye Maxamed Cali Daarood waxa uu dadaal ugu jiraa inuu ku sii fadhiyo kursi uu shaqadiisii ku fashilmay. kadib markii uu tahli waayay inuu Hargeysa waraabiyo, waxa uu faraha la galay shaqaantiisii ahayn. siyaasadda ayaanu dhex dabaashay isagoo qayb weyn ka noqday falxumooyinkii sababay inay dhacdo dawladdii kulmiye. ninka iga dheeri hayga kormaro waa raggu hadduu abtirsado inagaba oo badna. waxa uu abaabulay oo uu lacag badan ku bixiyey kooxo ka faa'iideysanayay xukun qarqooshkii Muuse Biixi iyo kulmiyaha dambe ay dalka ku hogaaminayeen 7 sanadood ee ugu dambeeyay. dadkii gafafka ka galay dawladnimada ayuu ku maalgeliyay lacagtii ay ahayd inuu Hargeysa ku waraabiyo. waxa uu bixinayay dhaqaalaha ku baxay hawlgalladii sirdoonkii leexsanaa, salaadiintii shacabka qaybinaysay, afku xooglayaashii kulmiye la safnaa ee caytami jiray, iyo cid kasta oo qiimkooda shilan dhaafsatay muddadii Muuse Biixi talinayay. dhaqaalihii ugu badnaa iyo dadaalkii ugu sarreeyay ayuu ku bixiyey in kulmiye iyo musharaxoodu ay talada sii hayaan, balse waa ay noqon weyday. doonista shacabka ayaana xoog noqotay oo kursiga ka tuurtay. isbeddelkii ka dhacay dalka kadibna muu miyirsan maareeye Maxamed Cali Daarood, balse dariiqo kale ayuu haddana qaaday. muddo kooban waxa uu sameeyey wax kasta oo uu istusay inuu xilka ku sii hayn karo. indhasarcaad been ah ayuu jirayaa ilaa hadda isagoo ku doodaya inuu Hargeysa ugu maqan yahay biyo ku filan. cid kasta waa uu miciinsaday inay u hadlaan. muuqaalada uu iska soo duubaya iyo kulamada geesarawaabka ahina waxay noqdeen qaar harbeelay si uu u muujiyo waxqabad been abuura. waxa uu miciinsaday muuqaalo uu si isdaba joog ah iskaga duubay. mar wuu soconayaa, mar kale wuu fadhiyaa, mar biyo ayuu isku sawirayaa, mar wuu ordayaa, mar kale baliye iyo ceelal ayuu dul joogaa. mar buu garabsanayaa dad uu danihiisa ka dhex arkay. ganacsatada ayaanu cuskanayaa, mar hablo beeshiisa ah ayuu miciinsanayaa, marna shaqaalaha ayuu leeyahay ii hadla. marka aad iyo aad baad mahadsantihiin. markaasi waa qorshe dawladeede. mar kale ergooyin ayuu dirsanayaa. ganacsatada kale ah Maxamed Awsiciid iyo Cabdikariin Maxamediid oo uu magansaday ayaanu ilaa hadda dadaaladooda ka haynin natiijo togan oo u damaanad qaadaysa inuu xilka sii hayn doono. Maxamed Cali Daarood, maareeyaha wakaalada biyaha Hargeysa, waxaan oo rafaada waxa uu marayaa inuu sii hayo xilka, balse xaqiiqadu waxay tahay in xilka xayuubintiisa la karkaranayo oo aanay cafin doonin seefta isbedel doonku. ninka iga dheeri hayga kormaro